marka adiga gud ma qode aan gud ma qode kii diyaarsanaan ay galeen yaa gal ku dhaasay barti ay dhigeen oo iga carreen lugta way jabtay gargaar caafimaad ayaa loo fidiyay meesha liga carreen ani meesha habeenkii ku bariyay oo noo dhiig baxay rafaadsan. In the absence of the government service sidoo kale inay jirto buffer iyo sidoo kale family pressure in qoysaskooda cadaadis lagu saaray inay ilmo keenaan waxa ay kaga bilaabatay tashkiilin ilaa lagu shubay khuraafaadka qawaariista waana la soo dagaalgeliyay ilaa godod madaxa ku furtaa loo qoday dhowr baalooto AK47 lugooyahana farqaha loogu shubay laakiin marka dhimbishu geesiyaashu ay dul timid waa loo hakan waayay noloshaana lagu dayacay ilaa midkood jihada ay ka dhuntay wareer caadi ah asmar iyo cadnaan raadkii howlgalka duufaanta aamusan ee bariire sawirkan waa hadda ka hor iyagoo laga kala cararay midkoodna dhiig baxaya diifta iyo haraadkana ay wadaagaan kadib sawirkan oo hadda ah waa kan muujinaya isbeddelka labadaba muuqaalkooda waana markii ay heleen daryeelka dawladda iyo dabiibka hosbitaalka ciidanka xoogga dalka haddana iyagaaba kaa naf jecel eedaysanaha koowaad Cabdullaahi Cali Xuseen oo afgarashadiisu tahay Cadnaan ayaa safka argagixisada qortay sanadkii 2024 iyadoo jilibaayaheed halka uu kaga biiray tababar muddo 3 bilood ah bu'aale iyo jilibna uu ku qaatay ayaana lagu baray hubka fudud iyo taatikada dagaalka tababarkaas ayuuna kala qayb galay argagixisa markaas ahaa 300 muddo mubaarak shabeellaha hoose laga shaqageliyay ayaa loo soo daabulay deegaanka bariire oo ay ku soo food lahayd howlgalkii la mahdiyay xoogga dalka Soomaaliyeed ee duufaanta aamusan eedaysane Cadnaan maalintii 12kii bishii 2025 ayuu ka haray isagoo dhaawac ah ku dhawaad 150 qawaarij ah oo dunida laga diray allaana uu naga reebay dhagartooda rasaastii dagaalka lugta ka haleeshay ma noqon mid noloshiisa ay soo afjartay ciidanka qaranka ayaa dhaawac ahaan u qatay kadibna dhigay isbitaalka xoogga dalka si loogu daweeyo waa isbedelay ilaa lagu soo ekeeyay garsoorka si sharciga loo waafajiyo eedaas ma gashay mise ma galin dada ka qabtaa eedaas waa gale see wax u dhaceen waa ka tirsanaa sidee ugu biirtay see wax u dhaceen ilaa lagu soo xiray bal nooga sheekay waxa jira ani horta qof waxa ahaa wiligiisa meel dawlad joogto u santagina waxa ku dhashay Jubbada Dhexe jilib dawladeedu wiligii ma arag marka fikirka shabaabnimo baan ku dhex koray fikirka shabaabnimadii baa lagu qalday sidii aan ku raacay oo lagu tashkiiliyay marka sanadkee raacday 2024 bisha 6aad meelahaas aan raacay marka ina ku soo barbaarta laga soo tago yaa gal ku dhaasay dhalinyaro ani igu weenay wadeen hore i waday kuwaas aan aqli badiyeen sidaas ay ugu wadaan tababar qaateen miya maxay tababarka 3 bilood oo noo socday waxa la isku baray jimicsiga iyo qaabka hubka loo qaato iyo qaabka dagaalada oo xeeladaashii dagaalada aan la baray galkee ku qaateen tababarkaas waxa ku qaatay Jubbada Dhexe jilib iyo bu'aal meel u dhaxeeyo magaceed meel hooda duur leh meel magac leh ma kadib markii si ku soo gaartay meeshan kale halkaas aan ku dhaltay ciidanimo lagu keenay oo meeshan dagaalka socda darteed lagu keenay marka la keenay meel diyaarsan waxay ahayd mar hore good laga diyaarsaday ahayd oo ciidan hor u sii jeey ana sidii ku imaaday oo dagaalkii intuu bilaabana imaaday qorigii lagu wareejiyay sidii ana dagaalka ugu qayb galay xaaladda meesha see ahayd marka xaaladda meesha anaga joogay oo shabaab joogtay meesha intee ahayd meesha bariir waa shabaab joogtay way isabaabuleen oo meesha isku diyaariyeen abaabulkoodii in muddo socday kadib anigii meesha tagay ayagoo dad iga horay ana meesha tagay ayadii hooshii oo qabanqaabo diyaarsan aan tagay oo godad qaarna qodan qaarna aan qodneen kadib meelaha lagu daray oo meelaha la yeelay oo qorigii wixii la siiyay godadkii dhinaca ka qotay ana sidii u galay godad kadib waa dagaal bilowday oo ciidamada dawladda meesha looga imaaday idinka leen soo weeraray anaga soo weeraray dagaal bilowday dhowr muddo ay muddo dagaalka socday isbuuc dagaalka socday isbuuc ka badan inuu yaamaleen xataa dagaalka socday markii xaaladda adkaatay oo meesha la ismari waayo oo shabaabna ay baash ku adkaatay waxa la yiri halaga baxo bixitaankii magaalada laga baxayay aniga waxa ahaa markii dadkii bixitaanka magaalada ka baxay qof dadka ugu dambeeya ku jiray markii magaalada aan ka baxnay ka aan baxnay dagaalna qabsaday dagaalka markuu na qabsaday dadna way baxeen oo waqti hore baxeen oo anaga u dambeynay meel go'doon ku galnay go'doonka galnay aani ku dhaawacnay dhaawacmay waa laga tagay koodii mar damba kuwa ii soo laabteen oo meel aan iga dheereen ku jiray way qaadeen inay qaadaan isku dayeen way qaadeen cabaar ay wadeen ilaa iyo 4 saac weynimo ay wadeen adii 4 saac weynimo markii cabaar ay wadeena
anagoo meel binaana marayna ciidamada dowladda naga daba imaaday xabaday nagu soo fureen dadkii ii waday bartii ay dhigeen waa iga carareen kooxda ku waday kooxdii ii wadi bartii ay dhigeen waa iga carareen bartii saa u jiifay waaga ii bariyay waaga markuu ii bariyay ciidamada dowladda gacantii ku soo dhigay ma kula hadlayaan oo warheega teginayo misdhehaysaan miya yaa isla hadla kooxda ku waday maxay kuu sheegaan markay kaa tegayaan waxay ma sheegeen xabadaha nagu bilaabay anaga ayagoo ay wada xabada nagu bilaabay xabadihii ka carareen naftooda badbaadsanayeen anigu waa iga tageen nin dad oo tooda badbaadsanaya anigu iga carareen meesha liiga carareen aniga meesha habeenkii ku bariyay oo anoo dhiig baxaayo rafaadsan subaxdii ilaahay dowladda ii keenay sidii dowladda igu soo waday oo dhakhtar igu geeyay kadib waa laysoo waday xamar lii keenay saalka xooggaa liigay intee ka jabta lugtu midig waa lagu kabada waa lii kabaa see lagula tacaalay si wanaagsan aad ila tacaalay weli alla ka lugtu weli si fiican iskuma qabsan weli hadda biraaq ku socda shilkaa lagu kaba miya kuwa shilkaha waa lii marka hore lii geliyay marka saalka imaanaya kuwii hore lii geliyay 7 bilood ay ugu jireen waa ku kalmi waayay marka ku kalmi waayay oo weliba sideedii la ahay waxaa yirina biraha igu lugoynaya iga bixi kuwa kale lii geliyaan dhah sidii laga bixi birihii gudaha ahaa lii geliyay marka waalidka ma dad ahay ma shabaabka ahay may aabaha ma ahay aabe shabaab ma nolya ooyadana noosha hadda ma fadhidaa mama ma joogto kismaayo meel loo joogaa wax ma baratay ani aabe macallin ah dugsi quraan u furnaa oo jilib ugu furnaa aabe isa wax bare macallin dugsi quraan oo jilib jooga miya aabe dugsi quraan u furnaa quraankaas dugsiga sabta quraan bartani quraanka ma dhameys waa dhamay maxaa lagu baray tafsiir wax ma lagu baray tafsiir may quraanka oo lafdigiisa baratay naska baratay adiga meeqa meel aad dagaal ka gashay marka dagaalkii ugu horeeyay waani tababar saa ugu soo baxay meel iska joognay anaga badan meel iska joognay kadib inta leena la keenay inta dagaalkii ugu horeeyay aan galo ahaa oo dagaal ugu horeeyay aan galo oo difaaci aan qodano oo galo kan ugu horeeyay godka adiga baa qotay godka kuwan hore u qodnaa kuwan markii aanay imaada qodan marka adiga ka ku jirta adaa qoto miya godka marka in god in la galo maxaa keenay dagaal caadi lama gelin miya waxaa keenay diyaarada laga cabsanaa meesha diyaarada joogo diyaarada godka lagu gabana meesha ka waran marka roobki iyo waxay markii daa meesha rafaada ka jiray intii dagaalku socdo ma jiray markaas ma jiray roob laakiin wabiga biilaan ahayo rafaad waa jirtaa rafaad oo waxay jirtaan caadi heen bacdama oo dagaal ay galayso oo lagu tababaro kooxda ku qaadatay maxaa qaadanaysa mushaar ahaan maxaa lagu siinaya lacag lagu siinaya $50 bisha la siinaya aabaha ma ogolay markaas soo galayso aabe ma ima ogeen waa ka dhuntay eedeysanaha labaad maxamed nuur xuseen oo afgarashadiisu ay tahay isna asmar ayaa 2025 laga diiwaan geliyay tuulo lagu magacaabo Buula Calow oo degmada Baardheer hoos tagta kadib tashkiilinta dhagarqabe Ibraahim argagixisadii ayaa u soo wareejisay meel u dhow degmada Jilib halkaas oo 3 bilood ku maray tababarka iyo isticmaalka hubka noocyadiisa kala duwan sida AK47 RPG7 iyo Bomb F1 waxa uu ka mid noqday dhalinyaro boqolaal ah oo qawaariista furimaha dagaalka si in la'aana uga soo shubtay halkii nolol waxbarasho leh iyo mustaqbal loo sameyn lahaa dhiigga muslimiinta Soomaaliyeed ee walaalahoodana loo sheegi lahaa inuu xaraam yahay daadintiisa waase la gadoomay qorshihii qar isku tuurka riya maalmeedka iyo u seeta dheereynta maalmihii manaxayaasha howlgalkii duufaanta aamusnaa waa hakan waayey ilaa lagu diirsaday laguna eriyay qawaariista kan asmar ah 12 bishii 2026 maalintii howlgalka duufaanta aamusan ee bariire waa isku dhaxyaacay cabsi iyo jahwareer ayuuna galay ilaa uu kala garan waayey halka laga jiro geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa qabtay waxna looma dhimin waana kan hadda naaxay adigana sidoo kale waxa lagu haystaa ina shabaab ku dagaalamaysay oo dagaal ka qayb qaadatay bariire laga soo xiray adiga oo dagaal ku jiro taas lagu haystaa eedaas ma gashay mise ma galan dooda ka qabtaa waa galay see wax jiraan noo sheeg baarar agtee tuule ka dhalay oo buulaalo leero dhalinyaro seeto marka ma yartay miilsan soon alshaan soon bahanaya sidiyaa karay halbay miil ilbaat leero nishani bariyaal rogni na qaadi bu'al nji bu'al san rogni kidib walna qaaday inoo dad badan ina miil jilib agtee nji miil tababarna ninku furi 3 bilood wax qaadan 3 bilood markii qaadani dadka miil soo koosi dadka markii miil soo koosi dadka gaar fasaalisi aan dadka fasaaya ka jari markan hafdan bay hafdas markan saadi bilah roogi bil markan roogi hanagay bool fulla LG to maalo mada roogi kidib bariir ishaanatan ona badan miilatan guriyal nisi
difaacyal kore dad oo horiya qodan hatuna kasir dhimaashtirni bis igaajirid difaacyalka samay difaacyalka galni dagaalka bilaawday dagaalka dib bilaawday dhinac oo shirkadda Hormuud tagshay ya dagaalka socday geeskan taw kale sheejarni markan wala bad leeray dhankaan ka bilaawday dhankaas sheeg soo dibada meelising bilaawday in ku ogayni mayba neerayatan dagaal markii adkaaday hala ku faar jimiila hala ku baa una meeli ka bani oo soon dad gadaal oo jiraan isu geereen markan ee sugay geed oo safadheedeen geedkan oo fadhi dadkan sugay ma ahan dad kale oo ma aragay askartan oo dhinaca kale maraaso aragay may malay ku aan idin jireen malay marka oy istaag yeeri markan istaag eray ku kale dhinacay ka been guriyaal leeyo gobol istaag leeyo markan istaagi guriga dhiga leeyo guriga dhigi sidii la ogow ciidanka meel roga leeshay meeliya liishiri bariyaal meel roga kadib hamarna nin wareeji adiga markaas waa hubaysantaa miya guriga godadka adiga god ma qode aan god ma qod ki diyaarsanaan ay galeen adiga quraanka ma dhigat ha ilaa intee gaartay khamiis le la tuqadin jilad khamiis suurada gaartay la tuqadin ma gaartay ma akhri kartaa dil ugu dhiib kitaabka kitaabka la tuqadin hatta kormakaay ana wahi tabarak oo may la tataqid wahi asaka jara ilay kor kitaabka akhri kor ku kala hilmaamay wax kala ma baratay oo quraanka ahayn diinta ah ma lagu baray oo kutubyal kala kutubyal kala iyo nin bilaawdo fado oo lishani wal indibi laakiin oo mali baran aysi waa hayso jirta le waa wada jirta le miya mali dhig laakiin tababarka maxaa lagu baraa tababarka guru silin qaado isi dagaal leen garo iyo si caalamiintii waxa say liibar isi dagaal leen garo liibar maxay meeqa lacag lagu siinaa lagu dhaa meeqa lagu siinaa bili sodon lagu sii leeyahay bili sodon $30 adig geda ka timid gedo ilaa shabeelada hoos markii lagu keenayo meelo kale oo ka dagaalanta oo martama jira miya dagaal lagu guli ma dagaalkii koreey biri ninkaas bis aragteen hore bis ku aragteen maya markii oo la qobadi oo ano meel kiirin oo sin la qobadi meel lisishani markaas lay baaray isku iidan maxay anus laba dhinac kala jirteen macna aabahay hooyada manooliin adig maxay qabtaan kay doolo basalka taabay doolo agtay meele basalo taabaa hooyane hooy bar gootiga rogta waxay tii ku jirtaa qof oo ehelka oo shabaab ah ma jiro yaa kamid hala jiro agtagay adi dhaawac ma ku gaarin ma anu midir ciidanka dawladda ma waxa u maleynaysaa ciidamada inay yihiin saasa ugu tagtamay ku kula socdaa inta aadeen kuwaas wabwaay meeli gobolka liin waay oo duur mal iska arag duurka soo markan oo iyo oo socdaan la arageen anu markan eray oo aan sawlahay niman oo maarayid oo intii degan bis markan aragay ku kala gadaaleen ko istaag yeeran marka si ka istaag kuwaaga marka waa ka dhuunteen miya waalidka ma ogaa shabaab ina aadis ma beeraroog in beeraha dhuumad beeraha lagu ogaay beero adiga meesha aad degneed dawladda ma malayno beelo baadiye degno no tuulile dawladda muroogta shabaab lamada muroog dawladda muroogta shabaab muroogta baadiye caadi ah baadiye caadi laakiin baarar han dhawto baar dheer la ka tirsan baarar agtiye baarar dhaw dawladda marmaray ko asbis magaca tuulada buul alow asmar adig asmar yaa ku bixi al-shabaab magaca maxaa laga wada haydeen magaca naanis waa oo magacay oo si afgarashada amal leh waa kana ayadoo gacanta lagu haayo waa halkan jiifo waa eedeysana cadnaan waaye lugta way jabtay gargaar caafimaad ayaa loo fidiyey waa waka halka yaala halkan waa beeraha biriiro waaye eedeysanaha labaad mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh eedeysanaha waa la soo dagaal geliyey dagaalkii way ku jabeen way ka carreen markii kooxda argagixisada al-shabaab waxay qaldayaan waxay ka faa'iideysanayaan dhalinyarta yaryar ee miyiga ku nool ee aan wax baran ayay qasbayaan waxayna ku qasbayaan in ay ku daraan kooxda tababaro ayaa la gelinayaa waa la dagaal gelinaa way dayacmayaan markii sidaan oo kale loo soo dagaal gelinaa wayna ka cararayaan baare cabdiweli oo ka tirsan taliska sahanka iyo sirdoonka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa macluumaadka baarista ku biiriyay maxkamadda eedeysane cadnaan wuxuu ka mid noqday dhagar qabalayaal oo gurmud ah oo loo soo qaaday gobolka Shabeelle Hoose gaar ahaan degmada Bariile waxaana la geeyay aag loo asteeyay oo ku aadan shirkadda Hormuud wadada aado deegaanka Torotoro wadada jayga oo aad deegaanka Torotoro intii uu socday dagaalkii Bariile
waxaas cadowga al-shabaab gaaray mudane guddoomiye dagaalka ciidanka xoogga dalka waxay ku qaadeen deegaanka beriga xoreyntiisii ayagoo ay kaashanayaan ciidanka admis 8 bishii 8aad 2025 dagaalka wuxuu socday ilaa dhowr cisho kadib eedeysana wuxuu ka mid ahaa eedeysana cadnaan wuxuu ka mid ahaa maleeshiyaadkii al-shabaab dagaalka ku firxaday oo lagu soo qabtay dagaalka eedeysana wuxuu dhaawacmay abaara 12 oo galabnimo asoo baxsanayo ayaa waxa kor yimid ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo xilliga raadinayo firxadkii qawaariijta waxa xabad loo askari wuxuu u malay ciidankooda u qaatay cadnaan wuxuu u qaatay raggan soo socda inay yihiin rag ayaga ka tirsan markaas wuxuu dhahay wareede waa anigi iyo xabada lagu dhuftay oo maxaa la ciidanka ku soo ridan xoog lacaan lugta midig woona dhaawacmay kadib goobtii uu ka gurguurtay waxaa la soo qabtay nolosha lagu dhigay subaxii abaara 12 subaxnimo taariikhdu markay ahayd 12 bishii 8aad 2025 ciidanka kadib waxay u fidiyeen gurmud caafimaad u fidiyeen xilliga la qabanayeen eedeys cadnaan wax qori muusa wadan mudane guddoomiye markaan u gudbo eedeysanaha labaad oo ah maxamed nuur oo magaciisa bilaha asmar wuxuu al-shabaab ku biiray 2025 bishii 3aad wuxuuna al-shabaab kaga biiray gobolka Gedo gaar ahaan degmada Baardheere eedeysanaha labaad asmar wuxuu tababar mucaskar ku soo qaatay baadiyaha degmada Jilib wuxuuna mucaskarkaas la soo qaatay 370 dhagar qabayaal oo ka tirsan ururka al-shabaab waxaana muddada tababarka uu socday asmar la soo baray taadkada dagaalka sida godadka loo qato zaxfiska sida qoryaha loogu dagaalamo noocyadooda kala duwan kadib markii tababarku dhamaaday waa la kala qaybiyay 100 oo asaga ka mid yahay waxaa loo qaatay jabhad ahaan loo qaatay 14 ka mid ah waxaa loo qaatay kaamirmaano oo dadka la rabo inay dagaalada markay socdaan in muuqaalada been abuurka ay u soo dhigaan bulshada u soo gudbiyaan inay ka duubaan goobaha dagaalka ka galaan iyo 133 dhagar qabayaal oo loo qaatay gurmud ka dhexe waxa sidoo kale waxa jirtay 123 dhagar qabayaal oo ajaaniba ama muhaajiriin sida u yaqaanaan al-shabaab eedeysane asmar markii oo inta loo qeybay kadib waxa la siiyay muddo fasaxa oo bil ah muddadii fasaxa wuxuu soo aaday deegaanka ku dhashay gobolka Gedo degmada Baardheere kadib markuu muddadii fasaxii soo dhameystay wuxuu dib ugu soo laabtay degmada Jilib kadib wuxuu ka mid noqday jabhada loo qaaday gobolka Shabeelle Hoose gaar ahaan degmada Bariile si ay qayb ugu noqdaan dagaalka waxay ka mid ahaayeen sida qayb ugu noqdaan dagaalka socda degmada Bariile oo maxaa ay kula dagaalamayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kadib eedeysanaha wuxuu ka mid ahaa koox la geeyay waddo ku aadan Tabakal oo soo gasho degmada Bariile waxaana amiir fasiilo xilliga uu ahaa dhagar qaba lagu yaqaan Cali waxaana amiirkiisu sariyada lagu magacaabi jiray dhagar qabe Muumin Dheere intii uu dagaalka socday waxaa laga adkaaday ururkii al-shabaab ee deegaanka Bariile difaaca ugu jiray waxaana laga saaray goobtii difaaca ugu jireen kadib eedeysana wuxuu ka mid noqday raggii firxadka ahaa ee goobta ka cararay ee sida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku qabteen asaga iyo qorigiisa mudane guddoomiye gabadha baaristeeda waxaa noo soo baxday sanayaasha maanta maxkamadda jooga in ay yihiin xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo soo qaatay tababar sidoo kalena eedeysanaha koowaad wuxuu mushaar ahaan ugu qaadan jiray al-shabaab $50 halka eedeysanaha labaad oo ururka al-shabaab ugu qaadan jiray mushaar ahaan $20 sidoo kale eedeysanaha labaad markii la qabanayo waxaa la qabtay qori AK47 halka eedeysanaha koowaad xilliga la qabanayay aan wax qori lagu qaban balse gacanta lagu dhigaa soo dhaawaca
wabillahi tawfiiq mudane gudoomiye waa soo gabagabay inta ku guda jirtay baaritaankaada cabdulaahi iyo maxamed falal ay horey u geysteen macnaha qof ay dileen ama qof ay dhibaateeyeen ma ku soo heshay qofay dileen ma dagaal maxaa la sheegay xabadaha dhacay qofay dileen iyo waxaas macnaha falal kale horey waxay u meelo geysteen kale ay dagaal ka ma geysteen jirto ma jirtaa may su-aasha ugu dambeysa oo ku weydiin rabo waxay tahay baaritaankaada ma ku soo ogaatay in labadan qofood ay ahaayeen dad ahlu fidra ah ay ku dhashay goobo oo muddo badan ay haysteen al-shabaab aysan soo arkin wax waxbarasho ah oo ay caqiidadooda ay ku soo koreen baaritaankaada ku soo ogaatay soo maaha may dhamme xasan tarsan ku-xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada qaranka sida ayaa maxkamadda ka codsaday in labadan eedeysane lagu qaado qodobada eedda anagoo soo gabagabeynayna si waafaqsan qodobka 119 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh eedeysanayaasha Cabdulaahi Xuseen Cadnaan iyo Maxamed Nuur Xasan ee magaciisa afgarashada yahay uu asmar waxay qiraal u yihiin dambiga ay galeen oo ah in ay ka mid noqdeen urur argagixiso sidoo kalena lagu soo qabtay dagaal ay kala hortageen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mudane gudoomiye waxa sheegayno wax aan ugu been abuurinayna maaha ayaga ayaa qiraal ah maxkamadda horteeda ka qirteen qaabkii ugu biireen iyo tababaradii soo qaateen iyo waxyaabihii la baray iyo in dagaal lagu soo qabto waxaasoo dhan ayaga afkooda ka sheegay waxay ku jireen godad ku yaala deegaanka Bariire oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed geesiyaasha ah howlgal ka fuliyeen howlgalka way u babac dhigi waayeen dagaalkaas ciidanka xoogga ku wajaheen way u babac dhigi waayeen way jabeen waa la laayay way carareen firxadkoodii waaye markii eedeysanaashan labada ah ayagoo firxanayo oo kala ordaya ayaa la qabtay eedeysanaha koobaad ee Cadnaan see loo qabtay Cadnaan asigoo ordayo ayuu wuxuu dhaxda ugu dhacay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed asigoo markaa u maleynayo milishiyaadka argagixisada ee uu ka tirsanaa soo ku qaylanayo war waa aniga ayaa lugta hal baalota loogu dhuftay meeshii ku dhacay sidaas ayaa gacanta loogu dhigay soo ordi sidoo kale eedeysanaha labaad ee Maxamed Nuur Xasan ee magaciisa afgarashada yahay asmar asigana waxa lagu soo qabtay deegaanka Bariire dagaalka ka dhacay howlgalka markuu dhacay oo ay jabeen oo godadkii laga saaray ayaa asigana soo beeraha dhex ordaya ayaa gacanta lagu dhigay dhaawaca gaare eedeysanaha koobaad talisku gargaar ayuu u fidiyay dhaawaciisu soo qaaday wuxuuna keenay isbitaalka xoogga dalka Soomaaliyeed wuu jabnaa waa la kabay kabniin ayaa loo sameeyay hadda waa ninka caafimaadka qabo oo la arki karo oo dhameystiran oo wax problema aysan ka muuqan argagixisadu dhalinyarta Soomaaliyeed dabka ay ku shubayaan wayna dayacayaan mana difaaci karaan meel kasto oo ay galaan way ku jabayaan waxana looga qabtaa mar kasta maxaabiis ayaa looga qabtaa hal ay hayaan argagixisadu ma jirto waa dhigmirato waxa loo tababaray in ay dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed tababarka la siinayo waa sidii loo dhibaateyn lahaa ummadda Soomaaliyeed waxa la arkaa mudane gudoomiye ayagoo dad aan waxba galabsan dilaya qarxinaya xoolahooda qaadanaya ayaa mar kasta la arkaa taas oo ka dhigan asal ahaanba waxa la barayo in ay yihiin bulshada Soomaaliyeed si dhiigood u daadi lahaayeen xoolahooda u qaadan lahaayeen u dhibaateyn lahaayeen balse ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed markii is wajahaan goobta way ku jabaan waana lagu laayaa ayagoo maxaabiisan waa lagu soo qabtaa sida maanta eedeysanaasha maxkamadda hortaagan dagaalka lagu soo qabtay oo kale mudane gudoomiye eedeysanaashu waa qiraal dambiyada aan ku soo eedeynay waxaan codsanaynaa in lagu qaado loogana naxariisan qodobada aan ku soo eedeynay maxkamadda waa maasan qareenada oo ku dooda in muwakkiliintooda ay yihiin dhalinyaro qasbanayaal ah doorasho kalena haysan sidaasina looga xaday maskaxda ayaa maxkamadda ka codsaday in la geeyo goobaha dhaqan celinta waxna la baro dhammaan inta maxdar ku sugan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa abukaato qaasim jilaani maxamed waxaan abukaato ahay cabdulaahi cali xuseen iyo maxamed nuur xasan markii ugu horeysay ee loo jeediyey labadeeda sane sida ku cad qodobka 103 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxay ugu jawaabeen sida ku cad qodobka 104 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed qiraal labadeeda sanaba marka mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh labadeeda sane waxay ka sameyn yihiin
in ay ku soo barbaareen ayna ku dhasheen goobo muddo dheer ay ka telinayeen ururka argixisada ee al-shabaab sidaas la ajigeed eedaysanayaalku ma aysan arkin wax dowlad ama nidaam dowladeed marka mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh marka qodobkan lixaad farqadiisa koowaad ee lagu soo eedeeyey si cad uma qeexayo oo ma u kala bixinayo in lagu saleeyo ka mid noqoshada ururkan sidoo kale ururkan waxaa u diiwaan gashan dad badan oo waaweyn iyo dad xiliyada ay jireen iyo goobay haysteen ku dhashay oo ku soo barbaaray marka si cad qodobkan uma qeexayo in lagu eedayn karo ilmaha yaryar ee ku biiray ururka al-shabaab haddii uunan jirin qodobo kale ama xeerar kale oo lagu kabayo sida international consens heshiis caalami ah oo ka hadlayo la dagaalanka argagixisada eedan eedeysanaha labaad lagu eedeeyey inuu ka mid yahay ururka micno weyn oo ciqaab ka dhalanayso ma jirto mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh sidaan ognahay nimankan dhulka ay ka taliyaan muddo dheer 15 sano ama in ka badan ururkaas waxaa ka mid ah dad waaweyn iyo dad ajaanib ah oo foreigners ah oo dibadda ka imaaday iyo kuwo magaalooyinka ay ka taliyaan ku dhashay ku barbaaray marka mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh xeerka la dagaalanka argagixisada qodobka lixaad si cad uguma hadlayo sababtoo ah qodobka koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed wuxuu leeyahay qaanuunkeena waa in dembiga iyo ciqaabta qeexi karo haddii uu jirin qodob qaanuuneed kale ee ayidayo qodobkani waxaa la rabaa in eedo laga dhigo qodobkaasi wuxuu qodobkan noqon karaa carruurta ku dhalatay ama agtooda ku soo barbaaray ka mid ahaanshaha marka qodobkan laguma qaadi karo sababtoo ah markay labada sano ay ku biirayeen ma ahayn dad majuur ah ama dad qaangaar ah marka tusaale ahaan eedeysanaha koowaad waa 20 jir wuxuu ku soo barbaaray ama uu ku koray jilib wuxuu ku agfurtay ama uu wax ka bartay caqiidadoodii waxoodii haddii uu guursan lahaa oo ilmo dhan lahaa ilmihiisii asaga dhan waxay ka mid ahaan lahaayeen ururka marka haddii aysan dowladdu ay soon qaban lahayn marka wuxuu haystaa excuse ama cudurdaar ah inuu yahay ahlu fidra taas ayaa waxay u noqonaysaa dibaaciisa marka laga soo bilaabo 2007 dowladdii TFG-ga tuulooyinka ay ku noolaayeen labadeeda sano si toos ah maysan u degin maysan ka jirin wax adeeg micnaha oo boolisa ama iskuul ah ama xarumo caafimaad ah marka xitaa goobihii ay joogaan ururka culimmadii suufiyada dariiqada hataa meesha way ka carareen marka dadka meesha ku noolaa maysan jirin dad wax u sheega marka caqiida ahaan marka noocay haystaan marka dadka meeshaas ku dhashay oo ku barbaaray waxaa qasab noqonayso inay haystaan caqiidadooda marka mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eedaysanayaalkani waa ahlu fidra wax badan oo laga sheegaya ma jirto waxaa loo isticmaalaa inay yihiin min baabul igraah wax lagu qasbay si uu xeeraalyaha naftiisa afkiisa uu ka sheegay uu yiri ilmahan waxaa laga yaabaa in la qasbay ayadoo loo adeegsanayo in la dagaalgeliyo marka in la dagaalgeliyo maxaa keenaya marka waxaa keenaya saddex waxyaabood in the absence of the government service ayadoo ay meesha ka maqan tahay howlihii dowladda sidoo kale inay jirto poverty dadkay ka dhashteen inay yihiin dad faqara ah iyo sidoo kale family pressure in qoysaskooda cadaadis lagu saaray inay ilmo keenaan si loo askareeyo oo loo dagaalgeliyo marka sidaan ognahay qaaraddeena africa waxaa jiro ururo badan oo carruurta askareysa kadibna dagaalgelisa sida RUF
oo ay ka jirta Sierra Leone oo Foday Sank uu hogaamiye u yahay sidoo kale LRA oo Uganda ka jirta oo Joseph Kony asagana uu yahay sidoo kale Boko Haram Nigeria ay ka jiraan ayagana waxaa hogaamiye Abubakar Shakwa haddii aan u gudbo gabagabadii iyo gunaanadkeeda 119 heerka habka ciqaab Soomaaliyeed mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh heerkan la dagaalanka argagixisada wuxuu dhaqan galay bishii September 2001 dowladaha Ingiriiska iyo Mareykanka dhammaan dowladaha ku bahoobay la dagaalanka argagixisada wadamada deriska waxay leeyihiin xeerar la dagaalanka argagixisada sida xeerkan oo kale laakiin mid ku qoran heshiis caalami ah ilaa iyo hadda oo la isku waafaqsan yahay seen ka yeelnaa ilmaha yaryar ee ku biira ururada argagixisada ah ma jiro marka ama dadku ku dhashay agtooda ay ku soo barbaaray kadibna ku biire seen ka yeelnaa ma jiro marka qaanuunku waa inuu si cad u qeexaa dadka agtooda ku dhashay ama ku soo barbaaray waxyaabaha lagu xukumi lahaa marka haddii aysan jirin heshiis international treaty ah oo caalami ah marka meesha waxaa ka maqan qodobadii dadkaas lagu qaadi lahaa oo qeexayo sidaas aageed sanayaalkan waa in loo isticmaalaa oo loo isticmaalay under age ayagoo da'da qaangaarkaan soo gaarin inay ku beeraan marka sida mar dhow ay dhacday oo kale nimankii ISIS ee Syria inay ilmo badan laga soo celiyay oo la soo qabtay kadibna dawladda ay u sameysay rehabilitation dhaqan celin marka maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsan lahaa in labadan qofood ayagoo aan da'da qaangaarkaan gaarin oo adult ah ku soo barbaaray ku soo caqiidadoodii waxooda qaatay in maxkamadda ay u fidiso brainwashing wax la yiraahdo in maskaxda laga dhaqo caqiidadii wixii aaminsanaayeen maxkamadduna way mahadsantahay dood waa dhegeysanaysa maho maxaa ku baxay dood waa dhegeysanaa haye maxaa ka fahantay inaa qaldanaa ka fahmay oo wada qaldan ay ku taagnaa markii oo lagu soo xiray kadib adeeg noocee la kulantay caafimaadkii waa si fiican lila tacaalay isbitaalka xooggaa lii geeyey adiga caafimaadkii waa laga taxadiray oo lugtaydii waa ii nabad qabtaa hadda waa kabanaha magaca oo yaa ku bixiyey magacan magaca tababarkaa laisugu bixiyaa qofka asaa sheegan lahaa miya asaa sheeganaa magaca baxsaa lagu leeyahay ama ayagaa ku bixinaayo kan marka adiga lagu bixiyey miya anaa ayaga ay bixiyeen lugta muddo dheer ay taagantahay meeqa maraa la kabay lugta 2 mar ay qaliin gashay 2 maraa la qalin qaliinka ugu horeeyay biraha dheer oo shilkaha maar lagu xiray 7 bilood ay ugu xirnaayeen biri waa ku kabmi bish 8 laga bixiyey ay ramadaanka hadda waa lii kabay hadda birahaas ay ugu jiraan 3 bilood ay ugu jiraan biraha gudaha ay ugu jiraan marka caafimaad dareemay alxamdulillah maxkamaddu maxaa ka codsanay maxkamaddu waxaa ka codsanaa qof qaldamaan ahay oo weligiisa dowladda aan arag meel ay dowlad joogto aanan tagin oo dowladdiisa markii ugu horreeyay oo la kulmay aan ahay waxaan ka codsanayaa qof qaldamay oo sidii loola dhaqmi lahaa oo loo soo dhaweyn lahaa in lagu soo dhaweeyo oo xukunkeeda la khafiifiyo oo dowladdeeda ka mid noqda aan ka codsanaa maxaa fahantay dood marlino dhigay warsil sheegay waa aye oo atoo la sheegay dhigin wala qaldan ma qaran maxkamaddu maxaa ka codsanay maxkamaddu ma ka codsanay in oo wixii hore aan sameeynin afi oo xukunkan khafiifin oo hore deelisay